السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور دواذا متكمدة عشرة كساب سنة برشد القضاء إنجليزية. عشر كان وconversation 41 أما وهذا الكي أفرتني كوات برشد القضاء إنجليزية. وحول كمدها مركا وهذا الذي القضاء إنجليزية نوصل السعودية أتكلم سعوديين هي ملا أكاديمي. فضلا هذا سبسكرايب لهم ملا أكاديمي تابع على مدى سبسكرايب كا. sidoo kale wixii talayo tusaale ah waxaad maaragtay u soo bixin kartiin qaybta fikradaha hoose ee muuqaalka haduu ay beeraado. marka waxaan guda galaynaa casharka waxa wada hadlaya A iyo B. waxa hadalka bilaabay A wuxuu yiri what happened to your car, what happened to your car, or what happened to your car. gaarigaadii maxaa ku dhacay ama maxaa gaarigaadii qabsaday ayaan uga jeedaa. marka maxaa ku dhacay gaarigaadii. marka a tow truck gawaarida gaariga qaada marka a tow truck waxa loo jeedaa marka gawaarida waaweyn maaragtay ee lagu qaado gawaarida khalaysan ama maaragtay wax gaareen ama dhaawac gaari ayaa la yiraahdaa. marka ama maaragtay socon waaye marka gawaarida markay istaagaan ama meel ay fariistaan motorku ku istaago gawaarida lagu xamuulo ama lagu qaado ayaa a tow truck la yiraahdaa. marka a tow truck was towing my car ayaa marka waxa uu qaaday gaarigayga and but wuxuuna maaragtay uu gaarsiiyay all those dents dhaawacyada oo dhan ama waxa nabarada ama waxyaabaha ka muuqda in my car gaarigayga. marka wuxuu yiri gawaarida gaariga qaada ayaa intuu soo qaaday ama wax uu qaaday gaarigayga gaarsiiyay maaragtay waxyaabaha ka muuqda dents waxa la yiraahdaa. marka waxyaabaha gaariga markay waxay gaaraan ayaa la yiraahdaa. marka are they going to pay you for the damage. marka wuxuu yiri are they going to pay you for the damage. iyagu ma bixin doonaan ama siin doonaan lacag ama wax ma bixin doonaan dhaawacyada ay gaarsiiyeen darteeda. marka ama ma bixin doonaan ama iyaga ma lagu wadaa inay bixiyaan lacago ama qarash maadaama ay gaarsiiyeen wax marka gaariga dhaawac ay gaarsiiyeen. marka eriga to pay waxa loo jeedaa markii wax la bixinayo lacag la bixinayo ayaa la yiraahdaa. for the damages waxa loo jeedaa waxyaabaha gaariga marka dhaawacyada ama waxyaabaha meelaha ay gaariga wax ka gaareen ayaa la yiraahdaa. marka they are saying iyagu waxay leeyihiin ama nimanka gaariga soo qaaday waxay leeyihiin it was already there waxay leeyihiin marka horay ayuu maaragtay u lahaa dhaawacyada. marka what the hell marka waxa la yiraahdaa marka wax aad la yaabto. marka what the hell ama marka waxa la leeyahay ama waxa la dhihi karaa maaragtay wixii aad la yaaban tahay ama wixii maaragtay si qaldan kula muuqday leeyahay. marka that doesn't make sense arintaasi marka ma sameynayso. that doesn't make sense waxa la yiraahdaa marka arintaasi wax macno ah ma sameynayso. marka leedahay that doesn't make sense arintaasi ay leeyihiin horay ayuu u lahaa wax macno ah ma sameynayso. what are you going to do maxaad doonaysaa marka adiga inaad sameyso. adiga maxaad sameyn doontaa ama maxaad sameynaysaa. what are you going to do maadaama ay leeyihiin gaariga dhaawac ayuu horay u lahaa arintaasna macno ma sameynaysa adiga what are you going to do adiga maxaa lagu wadaa ama maxaad doonaysaa inaad sameyso. I have to go to court waa inaan anigana aadaa maxkamadda. eriga court waxa la yiraahdaa marka maxkamadda. marka I have to go waa inaan aadaa to court maxkamadda waa inaan aadaa. a cop was there so he can prove that the damage wasn't there. marka wuxuu leeyahay a cop police ayaa loo jeedaa marka ama nin booliis ah. cop nin booliis ah ama qof booliis ah was there ayaa halkaa joogay soo sidaa darteeda he can prove asigu wacdayn karaa that taasi ama the damage in damage-ka ama dhaawaca wasn't there uusan marka hore gaariga ku oolin. marka wuxuu leeyahay waa inaan aadaa maxkamadda waxaa halkaasi joogay maaragtay nin boolis ah oo maaragtay gaarsiinka
u sheegi karaa ama caddayn karaa ereyga proof waxa la yidhaha marka he can proof ayuu leeyahay marka proof waxa la yidhaha marka caddeemo marka qofka waxa caddeemo u noqon kara ayaa la yidhaha marka ama caddeemo ayaa hadda meesha ugu jirta ficil ahaan marka waxaa la leeyahay marka booliskaas wuxuu caddayn karaa in dhaawaca ama the damage in dhaawacu wasn't there halkaasi marka hore ahayn marka that sucks marka arrintaasi marka waa arrin qaab daran ama bad thing weeye ama wax aad u qaab daran ayay tahay I would be pissed aniga aad baan u xanaaqi lahaa pissed wax leeyahay marka يعني aad baan u xanaaqi lahaa marka qofka markii xanaaq dartiisa waxyaabo khaldan u sameynayo ayaa leeyahay marka if that happened to me haddii aniga arrinta ay u dhici lahayd waxaan la waalin lahaa ama maaragtay heer sare aan la gaari lahaa ama waxaa qaban lahaa ama yani ereygan waxaa lagu qiyaasayaa xanaaq meeshii ugu darneed pinsat marka wuxuu leeyahay waxaan aad baan maaragtay u xanaaqi lahaa if that happened to me haddii arrinta ay ugu dhici lahayd marka haddii aniga arrinta ay ugu dhici lahayd ama maaragtay nimankaas saas ay la dhaqmi lahaayeen waxaan noqon lahaa qof aad u xanaaqa wuxuu leeyahay marka I got an estimate waxaa marka aan geeyey gaariga waxaa la igu sheegay gaariga it is $4,000 marka wuxuu leeyahay gaariga waxaa lagu soo qiyaasay in ay $4,000 marka ay ku baxayso I got an estimate waxa la yidhaha markii gaariga waxa uu kaa gaaro haddii aad geyso meel maaragtay gawaarida lagu sameeyo haddii aad geyso oo meesha gawaarida lagu sameynayo oo makaaniga ama qofka makaaniga uu joogo uu gaarigaadii uu soo qiimeynaya marka wuxuu leeyahay gaarigan waxaa ku kacaysa intaan marka qiimeyntaas ayaa estimate la yidhaha marka qiimeynta gaariga lasoo qiimeynayo gaari keliya maaha laakiin wax walba oo la qiimeynayo inta ku kacayso ayaa loola jeeda marka I got an estimate waxaa marka la qiimeeyey gaariga lagu qiimeeyey inay ku kacayso marka $4,000 $4,000 oo maaragtay dollar inay ku kacayso oh my gosh marka oh my gosh tan waxaa la yidhaha waxaa isticmaala dadkan maaragtay ingiriisiga ku hadla badna isticmaala marka waxaa loola jeeda oh my god oo kale ayaa loola jeeda marka dam sidoo kale waa erey marka isagana maaragtay wixii layaab leh loo isticmaalo screw the court wuxuu leeyahay marka maxkamadda Georgia screw waxaa loola jeedaa Georgia the court maxkamadda Georgia ama maxkamadda aadin oo kale ayuu ula jeedaa I would burn waxaan gubayaa marka down I would burn down their store wuxuu leeyahay maaragtay Georgia maxkamadda waxaan gubayaa maaragtay their store meesha maaragtay bakhaarkooda ayaan gubayaa marka wuxuu leeyahay marka waxaad joojisaa maxkamadda screw the court maxkamadda Georgia I would burn down waxaan gubayaa burn down waxaa loo jeedaa marka waa gubis markii dab aad qabasiinayso marka meel marka dab waxa uu leeyahay marka dab ayaan qabasiinayaa bakhaarkooda their store marka wuxuu leeyahay maxkamadda iska jooji we will see waan arki doonaa what happens after court waxaan arki doonaa waxaa dhaca maxkamadda kadib ayuu leeyahay marka ninkan waxa uu leeyahay waxaan sugnaaba waa maxkamadda marka u kaadi oo maxkamadda aan marka aan aadna ayuu ula jeedaa marka yani we will see waan arki doonaa what happens waxaa dhacaya after the court maxkamadda kadib halkaana marka waxaan ku haysanaa marka yani ereyadii casharka aan kasoo xulay oo iyagana maaragtay kooban ayaan ku haysanaa ereyga koowaad waxaa dhahnay a tow truck waxaa la yidhaha marka gawaarida waaweyn ee maaragtay gawaarida ee aan soconaynin ee motoorka ka istaaga ayaa la yidhaha marka ereyga kale towing waxaa la yidhaha marka qaadis markii gaarika lagu qaadaya towing waxaa la yidhaha dentist waxaa la yidhaha marka dentist waxaa la yidhaha marka gaariga dhaawaca ama busbuuska ama maaragtay dhaawacyada gaariga maaragtay wax lagu dhufto
gaari kale ha lagu dhufto ama darbi ha lagu dhufto ama wixii gaara ayaa la yiraahdaa damage waxa dhahnay dhaawac maarta waxyeelada markii meel ay wax gaaraan court waxa dhahnay maxkamadda court waxa dhahnay police piece waxa marka aad ayaa marka u xanaaqi lahaa oo kale uu jeeyo asaga laakiin maarta waa wixii markii xanaaqi meeshii ugu dambeysay markii uu yaaro qofka ayaa marka uu isticmaali karaa marka casharkii halkaas aan ku soo gabagabeynayaa fadlan subscribe Himila Academy waxaad naga heli doontaa casharo kale badan oo maartay ku saabsan barashada luqadda Ingiriisiga ama cilmiga qaybihiisa kala duwan marka waxaan rajeynayaa inaad casharkaas ka heli doontaan oo asxaabtan aad la wadaagi doontaan mahadsanidin